gobolka City oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida saddex degmo oo ka tirsanayd oo la kala oran jiray Garbaciise, Cadeyto iyo Candhuufa ayaa Itoobiya oo markaa ay TPLF hogaaminaysay si jujuuba u raacisay deegaanka Carfarta halkaas oo ay dhibaato ka taagan tahay ilaa maanta walow heshiis ay shaaciyeen labada nin ee xukunta labada maamul ee Soomaalida iyo Canfarta. Ujeedada dhulka Soomaalida loo raaciyay gobolka Canfarta ma aha fikir xilligan u dhashay ee waa aragti fog oo ay qabeen kuwii TPLF xukunka ugu horeeyay ee Mililik Haile Selassie iyo Mengistu Haile Mariam. sida aan ku soo sheegay muuqaalkii isbeddelka ku dhacay maabka dawladda deegaanka Soomaalida iyo dhulboobka lagu hayo dagaalka halka ka dhacay waxa uu ahaa mid wakiilasha oo Abyssinia ka soo fulay muddo 4 sano ah ayaa ololo muuqda oo sifeeyna waxa uu ka socday deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka gobolka City. Faldambiyadii foosho xumaa ee ka dhacay galbeedka gobolka City waa mid gabi ahaanba ka qarsoon indhaha caalamka. Waxa ka dhacay xasuuqyo iyo xadgudubyo waaweyn sanadkii 2014 ayay gumaysatada Itoobiya si aan dastuurka ay malmaluqdeen waafaqsanayn ugu wareejisay dawladda deegaanka Canfarta saddexda degmo ee aan kor ku soo xusay. Itoobiya ayaa si xoog ku aamusisay dadkii ka soo horjeeday wareejinta dhulka iyadoo ku amartay Cabdi Ilay inuu saxiix heshiis aan ilaa hadda la ogeyn qodobadiisa. Kadib wareejinta dhulkaas Canfartu waxay bilowday isku day lagu tirtirayo Soomaalida dhulka lahayd ee Ciise. Isku dayada waxaa ka mid ahaa masaafurin, barakicin ama xataa dil wadareed. Gobolka City waxa uu ku yaala waqooyi bari dalka xoogga ku qabsaday ee Itoobiya wuxuuna deegaanka Soomaalida kaga beegan yahay jihada waqooyi galbeed. Waxa ku yaala oo dhexmarta wadada muhiimka ah ee isku xidha Addis Ababa iyo dekedda Djibouti. jidka tareenka ee casriga ah ee Addis ilaa Djibouti waxa 90% Itoobiya u yahay dekedda qalalan ay wax ka soo dhowsato kana soo degto. muhiimadda juqraafi ahaaneed ee awgeed dadka Ciisaha ee Soomaaliyeed waxay la kulmeen mawjado gabadh falla ah oo soo noqnoqday. colaadihii ka aloosnaa gobolka City may ahayn iska horimaad u dhaxeeyay laba deegaan ama dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta balse waa bartilmaameed joogto oo lagu hayo dadka rayidka ah ee Soomaalida ah iyo silsifeen qorsheysan oo ay si toos ah u fulinayso gumaysatada Itoobiya. dagaalkii ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay magaalada Garbaciise bishii Luulyo ee 2021 kaas ay ku dhinteen ilaa 1000 qof oo rayid ah kumanaan kalena ay ku barakaceen. laynta iyo barakicinta rayidku waxay ka dhaceen degmooyinka Garbaciise, Cadeyto, Candhuufa, dal la helay Allaale, Biyo Cadde iyo deegaano kale. in ka badan 10,000 oo caruur ah ayaa ku angoontoobay halka in ka badan 2,000 oo qof ay ku nawaafayeen. inta waxaa dheer in ka badan 200,000 oo rayid ah oo u badan xoolo dhaqato reer guuraa ah ayaa si xoog looga barakiciyay dhulkii ay ku noolaayeen. intaasi waa hordhace. waxaan muuqaalkan kooban ku soo qaadan doonaa sooyaalkii la isla soo maray ee ku wajahan galbeedka gobolka City. haddii aad nagu cusub tahay fadlan YouTube-ka subscribe saar, page-kana follow dheh. soo dhawaada mar kale. 1862 ayuu gumaysiga Faransiisku qabsaday Oboq oo ka tirsan Jamhuuriyadda Djibouti halkaas oo heshiis uu kula galay Suldaankii Raxayta. muddo yar dabadeedna heshiis kale ayuu la galay Suldaankii Tajooraha. ujeedada uu gumaysiga Faransiisku u soo degay xeebta waxay ahayd waa marka koobaad inuu helo goob ay maraakiibtiisu ku socotay Indochina ay ku nastaan isla markaana sahayda biyaha iyo shidaalkaba ay ka qaataan. waayo xilliga Ingiriiska oo cadan qabsaday 1839 ayaa maraakiibta Faransiiska u diiday inay ku soo xidhaan dekedda cadan. waa marka labaad xilliga waxaa socday hawshii lagu jeexayay kanaalka Suez, Canal de Suez kaas oo Djibouti ka dhigay goob malka ah. waa marka saddexaad waxaa jiray heshiis uu gumaysiga Faransiisku la galay gumaysiga Xabashida ee uu Mililik boqorka ahaa. heshiiskaas oo ahaa ganacsi ay labada dhinac isweydaarsadaan. waxaa kale oo heshiiska ku jiray in la sameeyo khatareen oo isku xidha Oboq iyo Addis Ababa, laakiin in khatareen halka laga sameeyo waa suuroobi weyda waayo waa dhul qarfa ah oo buuda badan biyuhuna ay ku yar yihiin. Mililik aad buu u jeclaa in khadka tareenka halkaas la soo mariyo dambaas diiday. markaa kadib waxaa gumaysiga Faransiisku u soo digarrigtay halka ay maanta ku taalo caasimadda Djibouti. 1897 ayuu xeebta Cambaado oo Djibouti waqooyi galbeed ka xigta ka soo degay halkaas oo heshiis kula galay odayaashii Ciisaha. heshiiskaas qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in Faransiisku dhulka Ciisaha ka hor joogsado shisheeyaha ku soo duulaya. heshiiskaasi waxaa ku jirtay in ilaa goobta la yiraahdo Jaldaysa oo diri dhababari kaga toosan una jirta 20 kiiloomitir in Faransiisku gaadho. xilliga Ciisuhu waxay ka qabsi qabeen Xabashida oo 1887 qabsatay xaruntii Islaamka ee Geeska Afrika ee Harar isla markaana ku soo siqaysay dhulka Soomaalida. waxaa kale oo ku heshiiyeen in Faransiisku dhiso khatareen oo isku xidha Djibouti iyo Addis Ababa iyo deked iska daa dhul ka hor joogsada. heshiis qarsoodi ah ayaa jiray kaas oo Xabashidu u fasaxayay in dhulka Ciisaha ay qabsadaan marka laga reebo intuu isagu rabo hubka ay dhulka ku qabsadaan isaga iyo Ingiriiska ayaa siin jiray. 1900 ayaa si rasmi ah loo bilaabay dhismaha khadka tareenka ee isku xidha Djibouti iyo Addis Ababa. 1917 waa la dhameystiray khadka tareenka dhererkiisu waa 752 kiiloomitir. 420 kiiloomitir waxa uu maraa dhulka Ciisaha gobolka City ee deegaanka Soomaalida. 1934 waxaa la bilaabay in la xariiqo xuduudda kala qaybisa dhulka Ingiriisku qaatay ee Somaliland. qaybtii Xabashida la siiyay ee Ogaadeniya iyo Reseveria iyo intii Faransiisku goostay. hawsha lagu xariiqay xuduudda oo laga soo bilaabay carra dhulbaante markii ay soo gaadhay goobaan sida uga figan halka ay ku kulmaan saddexda xad
ayaa ciisihii ka dhiidhiyeen dhulkoodii gaaladu soorantay. Waxay go'aansadeen inay ka dagaalamaan 30 dhalinyaro oo isu ururtay ayaa 30kii Maarso ee 1934 weerar ku qaaday injineerkii loo soo kireystay inuu calaamadiyo xadka iyo raggii la shaqeynayay oo watay gaari Land Rover ninkaas oo loo oran jiray Emil Bettis. Arrintaasi Hayle Selassie waa uu ka xanaaqay waxa uu soo qabtay shacabkii halka deganaa oo odayo u badnaa xuduudda iyo xariiqayeen gumaysatada reer Yurub. Waxa ka muuqatay inay iyagu qaateen oo isku koobeen xeebaha Soomaalida kana qadiyeen gumaysiga xabashida ee rabay inuu wax ka helo xeebaha Soomaalida waayo iyagaan dani uguma jirin in xabashidu xeebaha wax ka hesho. Hayle Selassie oo Itoobiya boqor ka noqday sanadkii 1930 qudhiisu waxa uu dadaal badan u galay sidii uu adeerkii Mililig oo kale inuu hantiyo xeebaha Soomaalida iyo Eritrea. Dagaalkii labaad ee dunida markii uu dhamaaday ee la jabiyay Jarmalkii iyo Talyaaniga xulafada la ahaa ayaa dalka Eritrea oo Talyaanigu gumaysan jiray Jamciyadda Quruumaha federaal ahaan u raacisay dalka Itoobiya, laakiin Hayle ayaa khiyaamay oo si rasmi ah ugu biirsaday dalkiisa. Waxa kale uu dadaal badan u galay in Soomaaliya oo dhan lagu soo dalay Itoobiya. Khadka tareenka ee Djibouti ka soo baxa markii uu maraya Ayshaca waxa uu aad ugu dhow yahay xuduudda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Salal ee maamulka Somaliland magacaabeen. Hayle Selassie waxa sida dharaarta uga muuqatay halista ay ku jirto wadadaasi dhunta Itoobiya oo ah si uu uga gaashaantana waxa uu dhistay dekada Casab oo kamid ah dhulka Eritrea oo uu boobay wadada laami ah oo isku xidha Casab iyo Hawaasa ayaa uu dhisay taasoo 665 kiiloomitir wadadaasi waxa dhexda ay kaga soo biirtaa wada iyaduna laami ah oo ka timaada Djibouti dariiqa Casab iyo Hawaasa isku xidha. Waxa uu dhulka Ciisaha ka maraa saddexda degme ee kala ah Candhuufa, Cadayto iyo Garba Ciise. waa degmooyinka inay ilay iyo Aadan Faarax oo fulinay amarka Tigreega ku soo gooyeen gobolka Soomaalida ay ugu dareen deegaanka Cafarta. saddexda degmo xilligii Hayle iyo Mengistu waxay ka tirsanaayeen oo laga xukumi jiray gobolka Hararge ee xalintiisu ahayd Harar. 1991 waxaa xukunka Itoobiya la wareegay qoladii TPLF oo dalka u qaybiyay qowmiyado kuwaas oo ayagana aan ka raynin dariiqadii hore loo soo maray.